dhamaanteena waxaan wada haysanaa taleefanno oo casri ah. waayahan dambe taleefannada casriga ah waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan sawiro qurxoon ama video aad u qurux badan aad ku duubto ama aad ku hagaajiso. si aad u samayso muuqaal qurux badan ama video qurux badan iyo sawiro aad u qurux badan waxaa u baahan tahay inaad iska saxdo kaamirada settingeeda. si aad u saxdo kaamirada settingeeda waxaad u baahan tahay inaad raacdo tilaabooyin iyo waxyaabo aad muhiim u ah inaad soo active garayso dhinaca settinga. muuqaalkan oo dhan waxaan isla eegaynaa inaan ku saxno kaamirada settingeeda haddii aad doonayso inaad qaado sawir ama aad qaado video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلامة دمان أصحاب ملك استو أجوكتان كسود وهذا channel كا وحان سيتوس وقلينا تليفون كا settingan وحقوق سيا وكليا ما دام أنا عن استعماله تليفون هذا آيفون كا هدي هيستو تليفون آيفون لبي طبعا يوحي كدم بي مقال كان وكان فعايا وحان نحكي لي دونا ونكون نحوريجي دونا settings كا. waxaad soo furaysaa camera settingeeda furaysaa camera setting markaa furto waxaad tagaysaa camera meesha ay ku qoran tahay. dabcan meeshan ayaan ka hagaajinaynaa wixii features kan u baahanahay inaan soo active gareyno. marka hore waxaan tagaynaa record video ayaan tagaynaa. hadda wuxuu joogaa 1080p oo HD ah oo 30 frames per second ayuu joogaa. marka hore waxaan tagaynaa show bal formats markay ku qoran tahay. show bal formats wuxuu ka wadaa haddii aad ku nooshahay qaaradda America ma u baahnid inaad active ka dhigto midkan, laakiin haddaad ku nooshahay Europe ama Africa ama Asia waxaad u baahan tahay inaad midkan active ka dhigto. wuxuuna maaragtay ku active gareynayaa maaragtay frames iyo waxyaabo kale oo la xiriiro frequency-ga oo wadamo kale ah. laakiin marka America aad degantahay ama qof America degan aad tahay uma baahnid inaad soo active gareysid. marka haddeertaan show balkan ayaan active gareynaynaa. marka soo active gareysno waa u jeedaa marka meeshan inay bateen oo balku qoran tahay. maadaama aan ku noolnahay qaaradda Europe ama Africa ama Asia aan ku noolnahay waxaan u baahanahay inaan active gareyno 25 frames per second. gadaala u noqonaysaa haddii aan ku noqono aan toos u socono waxaa u jeedaa marka HDR video inay ku qoran tahay. asagana waa iska xiraysaa uma baahni haddeertaan HDR video inaad ku samaysato telefoonkan sababtoo ah HDR telefoonada maaragtay ku samaysan hadhow markaa aad editing samaynaysid ayaa problem kala kulmaysaa. auto frames per second marka aniga waxaan ka dhigayaa off ayaan ka dhigayaa. waxaan rabaa wuxuu dhan inaan manual aan ka dhigo ayaan u baahanahay. kadibna waxaan tegayaa log camera. ani marka waxaan rabaa inuu log ii ahaado oo ani gacanteeda aan ku bedelo ayaan rabaa. waxaa ku sii xigo white balance ayaa ku xigo. white balance-ga dabcan waxaan u baahanahay inaan gacan aan ku xukumo oo manual aan ka dhigto ayaan u baahanahay. white balance-gaas muhiim waaye inaad ma aragtay aad adiga xukunto. haddii kale telefoonkaaga markaad duubaysid kalaro kala duwan ayuu ku yeelanaya. hadhowna markaa edit garaynaysid aad iyo aad ayaa ugu dhibtoonaysaa. intaas markaa soo samayso slow motion aniga record slow motion haddaan dhaho uma baahni. dabcan aniga slow motion waxaan ka dhigayaa markii aan 60 frames per second oo 4K aan ku duubayo slow motion ka dhigaa. slow motion kan aniga hadda ma isticmaalayo waan ka gudbaynaa. markaad duubaysid cinematic markaad duubaysid waxay leedahay marka kaamirada aad soo active garayso oo aad tagto kaamirada meeshan oo cinematic ku qoran tahay. markaa rabto inaad cinematic aad isticmaalayso waxaa u baahan tahay inaad samayso 4K 25 frames per second inaan ku duubo ayaan u baahanahay. dabcan 4K cinematicna waxa waaye background-ka markii aad banaanka taagan tahay background-ka maaragtay blur ayuu ka dhigayaa. adiga ayuu si toos ah kuu soo saaraya si qurux badan. kalarkaagana qurux ayuu yeelayaa. waxaan u gudbaynaa marka cinematic markaan ka soo gudmo formats ayaan aadaynaa. formatskan waxa waaye high efficiency iyo most compatible. aniga high efficiency ayaan rabaa. dabcan haddii aad haysato iPhone 15 iyo wixii ka dambeeyay ama 15 Pro Max ama kale 15 Pro waxaad haysataa Pro RAW and resolution control. midkan okay ayaan leeyahay. midkan wuxuu ku maaragtay ku saamaxaya high maaragtay quality-ga ugu dambeeyay oo telefoonka ay ka soo bedeleen oo telefoonkan iPhone-ka oo 15 ay ku soo dareen feature ay ku soo dareen. dabcan hadaa haysatid 14 wixii ka horeeyay feature-ka ma haysatid waa ka gudbi kartaa. laakiin hadaa haysato 15 waxa u baahan tahay inaad active garayso. kadibna meeshan marka aad taabato hoos meeshan waxaa ku qoran
high efficiency max 48 MB iyo maaragtay ProRAW iyo waxaa ku qoran ProRAW max ana marka ProRAW max ayaan active ka dhigay dabcan telefoonkan hadda waa 256 GB haduu marka duubaysidna daqiiqada yar oo noqonaya oo ma aragtay waa buuxsama isla markii laakiin se iPhone 15 waxa u baahan tahay marka feature kan soo active gareysid inaad ma aragtay external ahaan aad u duubto internal ahaan ma ka ogolaanayo sababtoo ah xajmiga oo wax duubayo 3 daqiiqo ayaa waxa laga yaabaa 15 GB iyo 20 GB camal inuu ku noqdo marka dabcan marka aad sameeyso waxa u baahan tahay inaad SSD oo ma aragtay external ahaan aad geliso ayaad u baahan tahay Apple ProRes okay kadibna waxaan tagayaa log ayaan leeyahay marka feature-ka lagu soo kordhiyay 15 Pro Max waxa waaye inaad ku duubi karto log dabcan log hadii wax yar sharaxaad yar aan ka bixiyo waxa waaye log wuxuu kaaga dhigayaa asaga dhan wash ayuu kaaga dhigayaa oo muuqaal oo aanan lahayn color iyo quruxba aanan lahayn hadhow markaad ma aragtay aad rabto inaad edit gareyso ayaad waxaad ka dhiganaysaa sida adiga aad jeceshahay colorka adiga aad rabto ayaa saaranaysaa feature-kan oo kaliya wuxuu ku kooban yahay 15 Pro Max iyo wixii ka dambeeyo ama telefoonada hadda ka bacdi soo bixi doono dabcan log ay yeelan doonaan laakiin hadii aad haysato 14 feature-kana kuma active gareysno dabcan meeshan waan ka baxnay wali hadda waxaan joognaa formats ayaan joognaa preserve settings hadaan tagno live photo ina disactive ka dhigo aniga uma baahni Apple ProRes inaan active gareeyo oo marka aan sameynayo photo markaan sameynayo ama video markaan sameynayo kana aan ka dhigo preserve aan ka dhigo marka aan log u bedelo inuu log ii ahaado ayaan doonayaa preserve macnaheedu waxa waaye marka aad telefoonka kamerada furto aad ma arag settings aad geysato aad iska xirto marka kale aad soo noqoto hadana furto kamerada isla meeshii inay ku joogan oo wixii dhan aysan ma aragta automatically aysan ka bixin hadaa rabto meeshan ayaad marka ka soo active gareynaysaa preserve marka kuwaan oo dhan adiga u baahan tahay marka sida uu active garey lahayd iyo ma aragta waxyaabaha oo automatically marka furto kamerada app marka furto oo ku soo bixi lahaa exposure adjustment waxaan leeyahay okay iso active garey aan leeyahay midkaan oo kale intaasaan uga baahanahay kadibna waan ka gudbayaa waxaan u gudbaynaa marka composition waxa waaye kaliya waxaan uga baahanahay inaan active gareyno live grid ka hadda marka uu active ku yahay disactive markuu ku yahay oo kamerada aad furto dabcan hadeertaan aad video dhaxdo malahan wax grid laakiin marka aad rabto inaad sameyso grid kan aad soo active gareyso dabcan marka qaabkan ayo saddexdan ma aragtay riigo ayuu ku yeelaya marka sidaas ayaad ma aragtay grid kaas ina active gareysan waa muhiim composition ka meesha aad kamerada ka taagan tahay ayuu ma aragtay ku qeexaya main camera waa kana oo 25 iyo 35 marka hadii aad rabto marka hore main camera si oo default ah marka ka appka soo furto si default ah cameradan u baahanahay waa midkan oo mainka ah wax kama bedelayo kaas ayaan u baahanahay waxaan kaloo u baahan tahay lens correction ina active ka dhigto macro control ina active ka dhigto kuwan oo dhan ina soo active gareysato hadaysan active ku ahayn high efficiency marka dhahdo kadibna most compatible high efficiency ayaan active ka dhigaya photo mode ayaan taabanaya marka sawirka qaadaysid lensiga isticmaalaysid saddexda camera oo gadaal kamerada isticmaalaysidna waxa waaye midka oo 24 megapixel ka ayaan isticmaalaya intaas marka soo active gareyso intaas kuma eg dabcan waxa jiro farsamooyin oo la isticmaalo marka sawirka qaadaysid ama videoga aad duubaysid oo kamerada appka aad soo furto kadib intaan hadda la soo gaartayna waxaan kula wadaagayaa feature-ka aad isticmaalaysid iyo qaabka uu isticmaalaysid dabcan markii aad kamerada appka soo furto oo aad dhahdo ama sawir aad qaadayso oo kale meeshan geeska waxa ku qoran live photo ayaa ku qoran waa xireysa kaasi ma aragtay markaas anu uma baahnid kaas laakiin waxa active gareysanaysaa maadaama wixii dhan aan manual ka dhignay ProRAW Max ama RAW Max RAW hadii aan ku sharxo RAW waxa waaye muuqaalka marka sawirka ka qaadaysid wuxuu kugu save gareynayaa file la dhaho RAW oo ku ogolaanayo inaad hadhow export application ka aad ugu sameyso aad ku edit gareynayso sida ma aragtay Lightroom aniga aan isticmaalo dabcan Adobe Lightroom marka RAW aad ku sawirto oo RAW aad active ka dhigto waxa waaye markaasi waxaad ku edit gareyn kartaa oo sawirada colorka iyo waxyaabahaas dhan ugu qurxin kartaa markuu RAW ku yahay hadoosan RAW ku ahayn
aad sawirka qaado export aad ku samayso oo aad geyso Adobe Lightroom aad geyso si fiican mukugu maaragtay edit gareysmaayo marka raw ina active gareyso marka sawir qaadaysid aad iyo aad ayuu muhiim u yahay hadii aad rabto ina video caadi qaado videoga dabcan hadeertan meeshan wuxuu ii joogaa 4K 25 frames per second kan waxa waaye oo kaliya marka aad sida adigoo fadhiyo cashar bixinayo ama muuqaal ama aduubayo oo kale caadi ah hadliis laakiin markii aad rabto inaad magaalada aad duubayso ama maaragtay waxyaabo badan oo B-roll ah aad duubaysid meeshaas ayaa taabanaysaa oo maaragtay 60 frames per second ayaa ka dhiganaysaa marka aan setting sidaan u sameeyo oo aan sawiro soo qaado kadibna waxaan ku edit gareeyaa application la dhaho Adobe Lightroom hadii aad u baahan tahay casharkaasi inaad ka faa'iideysato aad barato sida loo edit gareeyo casharkan daawo hadii aad nagu cusub tahayna waxaan ka rajeynayaa inaad nagu soo biirto adigoo subscribe saarayo waana inoo video kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh